عثمان رضي الله عنه وأرضاه وصحابي جليل كهاي الدنيا دي إلهي كو امتحامي لو شيء إن الامتحامي يولي بني اسك الصبري عجيب beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga Abu Musa al-Ash'ari baa irid taagnaa markaasuu nebiga u sheegay ya rasuul albaabka waxa garaacay Abu Bakar markaasuu nebigu soo gal ka dhaab Abu Bakar jannada ugu bishaaree haddana Abu Musa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa Umar waa ku soo idan qaadiye u kaadi ya rasuul Umar baa albaabka jooga soo gal ka dhaab jannada ugu bishaaree haddana waa la garaacay ya rasuul waayo waa Usmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaa siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yiri markii loo sheegay leeyahay nabigu jannana uu kugu bishaareynaya adduunyadana balaayo iyo masiibo kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay Allahul musta'an Allahul dad safka hore ku wada tukataan ama mid meelaha iska barjayo qaraabadiina hadduu laba jeer ku yiraahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qalime ka waran waxaad oran waraado noloshidaad ka xuntay idaay karqabatee Soomaa waad ka raacsan waa mid meelaha iska barjayo qaafila oo masaajidada iyo diinta Ilaahay cilaaqo la lahayn hadduu laba jeer riixun ku sheegaa saa u nixo oo sida u qarqariyo ruuxba ku dhacaya Muhammad alayhi salatu wasalaam saadiqul masduuq baa u sheegaya inuu balaaya adduunyada ku asiibi doonto waxa uu leeyahay haddana Allahul musta'an وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قد حفظيه أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر ستي ويدنكتي النبي عليه الصلاة والسلام إن انتيسي مرقاسو كالي فاطمة يرمى خو شاقي دكتو وحو شاقي وعيد الوان للما قد فاطمة عائشة أركيسة أم المؤمنين رضي الله عنها مرقابو النبي يقول هذا كالي فاطمة أرين كلام خو شاقي دكتو وحكا له خو شاقي إسلام مركيبة فاطمة هذا ويقص الشيء فرح عليه عائشة مالين دنبا u yeedhay oo diraarintii maalintaadii aabahan dhaxmartay ee marna ku oyday marna aad ku farxaday ii sheeg markaa bay tiri hooyo ku sheegi maayo sirtaas aniga iyo nabiga naga dhaxayso kuma sheegayo walaakin Aisha may halmaamine markii nabigu kaleey salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ay maalin u yeedhay ka tiri maadaama nabiga adduunyada ka intiqaalay sirtii adiga nabiga naga dhaxaysa maanta inaad sheegto way ku banaantay ii sheeg markaas ay tiri hadda waan ku sheegaya arrin sirta u horeysay kaliilmeeyo waxay hayd waxa uu ii sheegay geeridiisu ii sheegay inay dhowdahay danawaan oo yeebeetir oo intaad ugu arkayseen sirta labaad uu ii sheegay ku farxay waxay igu hayd wuxuu igu yiri ooyin Faaduma ya Amus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nabi maxamed ee jannada galaya gabadha ugu darajo sareysa ugu barwaaqaysan in Ilaahay ka dhigay miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tiri riwaayad kalena wuxuu nabigu ku yiri haweeney Amus Faaduma ehelkayga qofka dhimashada igu soo xigay adiga Amus igu yiri dadna waan farxay bay tiri qof dhimashadiisi loo sheego farxaya ka waran intuu diyaar garoobay qofkaas هشام ابن عبد الملك ayaa u yeedhay Abu Hazim Yazid al-Raqashi wuxuu su'aal baan ku weydiin buu sheekh ma lana nakrahu al-maut hadana anagu boqorro aan nahay maxaan dhimashada u karahnaa buu yiri dhimashada waa ka cabsanaay zamankaas waa taabiciinti waa qurunti hore weeyaan madaxda umba nolosha adduunyada jeclayde caamada muslimiintu aakhirada inay tagaan bay jeclaayeen maanta zamankeenna faqiirka aan gurigiisa caawa waxba aanan oolin inuu aakhirada diyaar ma u yahay faqiir hatta quuta اليوم aan haysan hadii la yiraahdo aakhirada diyaar ma u tahay maybe oran inteen halka fadhiday masaajidka joogta hadii halka hadda malag soo taga malag oo yiraahdo intiinaas Ilaahay raalli buu niga noqday albaabadii jannadana waa la inii furay ayaa u diyaaray imikada inuu gal hadii la yiraahdo ka warrama wuxuu yiri Abu Hazim baydi waxaad dimashada u karhaysaan ana ku jawaabi hay
adduunyadan ayaad camirteen oo aad qurxiseen aakhiradiina waad iska kharribteen oo waad baabi'iseen marka daarta aad qurxisateen aad camirteen inaad ka tagtaan daar aanan waxba iniga dhisnayn oo niga baaba'san oo niga hallowsan inaad u guurtaan dee oggolaani maysaan buu ku yidhi dadku goormay aakhirada jeclaanayaan goormay la kulanka ilaahay jeclaanayaan waa marka dadka acmaali ka horrayso waa marka sahay ay ka horrayso abu dar baa odhan jiray saddex baan adduunyada ugu jecelahay dadkuna way karhaan dhimashada iyo faqriga iyo bugtaanta saddexdaa dadkoo dhan way dhibsadaan aniguna waan jecelahay buu yidhi maxaad la jeceshahay baa lagu yidhi oo waxaan la jecelahay faqriga waa tawaaduc buu yidhi tawaaduc baa laga helaa faqriga xanuunka waxaan la jecelahay waa dembi dhaaf kullamaa qofka mu'minku xanuunsadaba dembi baa laga dhaafaa dhimashadana waxaan la jecelahay maad garanaysaan buu yidhi maya noo sheeg la kulanka rabbigay baan jecelahay buu yidhi laana dadkaasi waxbay qadimteen iyaku maalintuu dhimanaya abu dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda laydhaa xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sankaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad la ooyaysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhina oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay igu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkiiba boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkiiba boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaleo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qaybgeli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sankaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax ka soo socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la dhihi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan waxay maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuuli illaahi sal alla alay wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay idhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada u yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeenee dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga ina sii sheegay buu yidhi xadiiska nebigu markii buu u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oy u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya
dawladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inagu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigina buu kafan ugama baarin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantu ka dhowrayaa jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhiro la tagaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen maraynaa waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cunta Soomaali gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwaddaadae taaiirsaa shahwaddaada way saamayn ubadkaaga xaaraantu taqwaduna awlaadda iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa